Afrika waa lagu dhashaa balse shanta sababood ee dhalinyarada Afrikaanka tahriibiye maxaa kamid ah ila daawo marka u horeysa waad ku dhalanaysaa waad si ku weynaanaysaa waxaanad la kulmaysaa markaad suuqa u baxdo sidan oo kale sidan oo kale marka aad la kulanto iyo waliba sidan oo kale waxaan go'aansanaya dowladana in bulshada صح marka in lagu saacawiyo doonaysa dadweynaha ku codsanaysa صح xaqiiqdii waa tacaddi jira hadallada ugu badan ee dhaxalgalka ama dhigahaaga ku soo duulaya waxa kamid ah sida tan wadankii lama aragaaja ka dhacday kii baa baqtay ma kii bay qaniina habar jalu raacay dubaga yar buu soo raacay war madax bay lama kaasay wada la cunay falal qaado rubu qaado hadaa aydo wal waddamanka Afrika qaarkood dadka xirfadlayaasha ah waxay ku tacadiyaan shaqaalaha iyaga la shaqeeya hadda nin uu iskuulkiina ka baxay bilaa camalna ah waalidkaana wuxuu ku oranayaa orod shaqo tag waa la shaqaystaa marka inta la gaaro kabacdi waxa kugu dhacaya niyad jab waxa kula kulmaysa ama waxaad niyadi gelinaysaa inaad ka baxdo waddankan meel shaqo lana qabato xagga shaqada leh xaggeen u naqaanaa waa inaad waddanka ka dhoofto waxaase kula kulmaysa sida sidan oo kale marka aad ka badbaado haddana waxa kula kulmaysa sida tan hadda aad aragto ugu dambeyntii marka aad ka badbaado intaasoo marxaladood ilaa Afrika iyo ilaa meeshaad u socotay ama Yurub ha noqotay ama Amerika ama Aasiya waxaad hamigaaga gelinaysaa inaad shaqaysato hadiiba aanad noqon kuwa nolosha ka dhaca waxaad Afrika ka soo dhisanaysaa waxoogaa guryo ganacsi hadad rabto wad samaysan laakiin kuma qanacsanin inaad marnaba ku noqoto Afrika waxaad ku dhalaysaa ama ku dhaqmaysaa meesha aad u tahriibto ninka ugu fiican waa ninka waalidkiisa u soo diray biilka intaasoo marxaladood meesha uu ka soo badbaaday haddana waxa lagu qancinayaa markaste in khayraadka waddankiisu boqolkiiba boqol yahay ninka keliya ee ku soo noqda waa ninka ama wax bartay ee dhakhtarnimo iyo waxyaabo lamid ah ama ganacsi asaasay ee siyaha haddaba Afrikaanka khalad oo ku noqo dhulkii wax walba laga yeelay bilaa sharciga ahayd ninka intaas soo raaco waa ninka siyaasadu soo doonta ama inuu kursi siyaasadeed ka hantiyo Afrika intaas oo dhan marka ay kula kulmaan waxa laga qadarinayaa dhulkii aad ka tagtay si fiican waa lagugu soo dhaweynayaa iyadoo oo dadkii aad ka tagtay aad ku ixtiraamayaan sababta diidaysa markaa inaad tahriibto maadaama aad ixtiraam ku helayso qofka kaliya wax laga akhrisan kara tahay qofka kaliya siyaasad ka qayb qaadan kara tahay qofka kaliya hadduu dhakhtar furto aan la oran karin ninkan ruqsad ma u haystaa ayaad noqonaysaa shay kaste oo aad asaasto waa laga aqbalayaa balse haddii aad Afrika 7 jaamacadood kaga baxdo yaaba wax ka aqbalaya maxaa diidaya markaa in la tahriibo rag iyo dumar Afrikaan kale marka laga tago Soomaalida boqolkiiba 80 ay kamka soo galaa waa intii ka tahriibtay wixii ay ku soo celiyaan inkastoo tahriibtii imka adkaatay siyaabo kale si laakiin wadamada shisheeyaha loo galo maxaa haddaba u diiday xitaa ninka madaxda ay marka uu xilkiisa dhamaysto in uu dibadda qabto oo 7 baasaboor kala duwan yeesho waxa kaliya ee uu halkan u yimaadana ay tahay siyaasado kaliya dadka Afrika iyaga laftigooda ganacsi ka samaysanba iyaga laga ganacsada dad ahaan iyo hanti ahaanba iyaga laga ganacsadaa ninka ugu fiican ee Afrika jooga ama laga yar haybaysto ama meesha uu doonayo furayaasha u sitaa waxa weeye ninka fanaanka oo kale meelaha
ganacsiga kuwa haysto oo kale aad iyo aad ba afrikaanka dhexdiisa u qadiriyaan tan iyo kulanti dambe waan idin salaamayaa barnaamijka share gareeyo like tana ku dhufo dhac ku siiya oo subscribe way ugu yarta